hordhac ahaan lahjadaha af Soomaaligu waxay leeyihiin dhowr qaybood bay u qaybsamaan buugan kii ka horeeyay afmaal maqaal uu qoray Professor Cabdalla Umar Mansuur buu ku faahfaahinaya kooxaha loo qaybin karaa qaybta koowaad waxa lagu magacaabi karaa lahjadaha maxaatiri ilaa 25 lahjadood bay iska noqonayaan qiyaastii lahjadaha maxaatiri waa kooxda koowaad lahjadaha mayga ama afraxan weyn ayaa kooxda labaad lahjadaha digil oo dhowr nooc oo kala duwan ah yaa iyaguna koox kale taa sida afkare iyo afjiido iyo aftunni iyo aftabare iyo af orole iyo waa lahjado lahjad kaleeto oo lahjada ashraaf lagu magacaabay iyo lahjada kaleeto oo dhowr ah oo laakiin afartaas nooc baa ugu weyn nooca shanaad wuxuu ka soo baxayaa laba nooc oo marba la isku kabay Sharif Saalax marka wuxuu tilmaamayaa af Soomaaligu lahjadihiisa kala duwan way is dhameystirayaan marka af guud oo dadka ka dhaxaynay oo la adeegsanaya mar walba jiraya lahjadaha iyo afkaas way is dhameystirayaan hadii la rabo in la fahmana kaalinta adeegsiga way kala leeyihiin oo marna afka guud baa adeegsiga loo qaadanaya meelaha qaar marna lahjada loo qaadanaya afka guud baana hagaya laakiin afka guud wuxuu ka imanayaa waa webi weyn oo laaga kala duwan oo lahjadaha ka yimid ay ku soo biyo shubayaan wayna is dhameystirayaan tusaaluhu soo qaatay waxa kamid ah dhowr eray tusaalahan lahjada mayga iyo lahjada maxaatiriga wuxuu sheegayaa sidii loogu tala galay tusaalahan erayo ku jira af mayga si sax uma fahmi kartid hadii aan maxaatiriga loo noqon tusaalahan erayada ku jira af mayga waxa kamid ah inan layaal hadii la rabo in la fahmo waa in af maxaatiri loo noqdaa sababtoo ah ereyga inan kuma jiro lahjada mayga sidoo kale kuma jiro lahjadaha digilka marka laga reebo qayb karaha oo dhan ma qayb kamid ah ereyga inan adeegsata marka inan layaal si loo fahmo oo inan layaal ay macnaheedu yaqaanaan laakiin ereyga inan oo gabadh loola jeedo lahjada mayga kuma jirto marka si ereyga macnihiisa loo fahmo waa in loo noqdaa maxaatiri waxa kamid ah daaca qurun waa in loo laabtaa maxaatiri iyo ereyo kaleeto tusaalahan hadii la rabo in maxaatiriga ereyo ku jira la fahmo waa in may loo noqdaa sida horseed oo kale hor waa la gartay laakiin seed maxay tahay may marka loo noqdo ayay fasirmaysaa ereyga horseedna nuxurkiisa iyo markaasaad fahmaysaa waxa kamid ah tusaalahan baadifad waa mar waxa la siiyo qofkii markii wax lumay hela Soomaa marka baadi waa la gartay laakiin fad maxay ahayd fad waxa mayga ay ku tahay yaradka gabadha laga bixiyo marka baadifad macnaheedii labadan erey la isaga keenay markaas la fahmaya waxa la mid ah minfiiq ama manfiiq sidii loo yiraahdo sida minxiis iyo minfiiq oo kaleeto oo lagu adeegsado maxaatiriga waliba maxaatiriyo waqooyi si jira ay tahay si loo fahmo minfiiq iyo minxiis waa in mayga loo noqdo oo ereyga min ama minan marka la jamciyo laga helayo marka way is dhameystirayaan marka wuxuu tilmaamayaa Sharif Saalax marka qodobka ah lahjaduhu loolan kama dhaxeeyo way is dhameystirayaan markii la adeegsanayana mar walba waxa jira af guud oo goobaha guud ee la isugu yimaado iyo qoraalada iyo lagu adeegsanayo sidoo kale waxa jiraya lahjado ama afguriyo iyaguna kaalintooda kale ee bulshada ah ka qaadanaya qaybtaas waxay u baahan tahay wuxuu ka tilmaamayaa cilmi baaris badan inay u baahan tahay si af Soomaaliga iyo xeerarkiisa iyo ereyadiisa loo fahmo waxa taa ku xidhan inkastoo in lahjadaha ahayn iyadana marka af Soomaaliga la baarayo waa in afafka kale kushitiga lagu xidhaa oo hal lahjadaha hoos baynu u soconay laakiin af Soomaaliga hadaynu dhahno aynu kor uga dhaqaaqno waxa jira afafka kale ee uu shalay u tilmaamay Professor Gande ee kushitiga oo waliba qaybo ay sii kala yihiin oo qaybta ugu soo horeeya ee aweeraha iyo rindhiilaha ama boonida ee booni iyo rindhiile ay isugu sii xigaan kadibna qolooyin kaleeto oo mataana ama la isku yiraahdo ilaa dhowr 6 luqadood ay sii xigaan af Soomaaliga ama marka dambe afafka kushitiga ee bariga oo boqolkiiba 90 afafka kushitiga la sheegay afafka bariga af Soomaaliga iyo Oromada iyo Canfartu ay yihiin ay sii wadaagaan marka hadii la rabo af Soomaaliga in la fahmo cilmi ahaan waa in loo laabtaa ayadan dhanka kale kushitiga ana kor loo aada hoosna waa in lahjadaha loo laabtaa marka way is dhameystirayaan lahjadaha iyo afka guud waadna mahadsantiin